kormeerkani uu ku yimid xarunta dayactirka kutubta quraanka kariimka ee jamciyada nuurul islaam al khayriya magaalada Boorama Sheekh Abubakar Xoosh Xareed oo kamid ah culimada diinka waaweyn ee Soomaalida ayaa waxa uu ahaa kormeer ugu kuulgalay qaabka ay jamciyadu uga shaqeyso dayactirka kutubta quraanka kariimka ee googooday waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sareysa jamciyadaasi ugu horeeyna waxa hadalka qaatay isla markaasina sharaxay qaabka kutubta quraanka kariimka ay u daryeelaan iyo goobaha ay u qaybiyaan Sheekh Cabdilaahi oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare jamciyada nuurul islaam waxana uu tilmaamay inana soo booqday sheekheeni weyna fadiilatu Sheekh Abubakar Xoosh Xareed oo xaruntii weynayd oo aynu arkaynaa kutubta quraanka qayba isugu jirto oo qayb cusub oo la inagu soo hagaajiyo iyo qayb aynu dib u sameynay oo iyagana meelaha looga baahan yahay aanu geyno tuulooyinka malcaamadaha adu masaajida maraakisna kolba meeshii looga baahan yahay talabku nooga yimaado ayaan geynaa qaybtana waa qaybta runtii waxa weeyaan aynu sameynayno hadii alla yiraahdo dib loo jildiyeyn doono kuwii marka iyagu noqon waayana waxaanu sameynaa marka waa la soo asturaa waa la soo aasaa kuwa kale waxa jira marka iyaguna gubtay oo runtii waxa weeyaan aanu meelaha ka soo ururino la noo soo sheegay oo ka soo qaadnay markii la nala soo xiriiray inta kadib waxa hadalka qaatay gudoomiyaha jamciyada nuurul islaam al khayriya Sheekh Jamaal Yuusuf isagoona tilmaamay qorshaha jamciyada uga meel yaala daryeelka kutubta quraanka kariimka ee googooday sidoo kalena soo dhaweeyay sheekha ayaa yiri runtii sharaf weyn bay tahay inuu sheekhu markaa waxa weeyaan indhihiisa ku arko jamciyada nuurul islaam inay markaasi hawsha ay hayso dayactirka markaa masaaxifta quraanka kariimka waxaa runtii naga go'an haddaanu nahay markaa jamciyada nuurul islaam inaan samayno haddii ilaahay qadaro meelo badan oo dunida ka mid ah inaanu marno si markaa aan uga wacdi gelino bulshada kale in markaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala au markaa waxa weeyaan aanu inagu dhex dayacmin ugu dambeyntii Sheekh Abubakar Xoosh ayaa ku bogaadiyay jamciyada nuurul islaam shaqadani ay hayso isagoona sidoo kalena ummadda muslimiinta ugu baaqay meel kasta ay joogaan inay garab istaagaan jamciyada nuurul islaam al khayriya si loo dardargeliyo aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan soo booqdo xaruntan jamciyadan nuurul islaam al khayriya inaan kitaabkan ka shaqeyno xifdigiisa ilaalintiisa dhowrintiisa hagaajintiisa waa min sha'aa'ir al-islaam bal waxa waxyaalaha ugu waaweyn min taqwa al-qulub iyo kamitaha ilaahay kitaabkiisa inaad weynaysid waa wax weyn kaasay nolosheenu ku jirtaa cizigeenu ku jiraa sharafteenu ku jirtaa karaamadeennu ay ku jirtaa sida awgeedna kitaabkan aan is agtaagno oo xafidno ciyaalkeena xafidsiino ilaalino dayactirno jamciyadan khayrka badan ilaahay khayraasiyo in la is agtaago waa wax weyn waa waajib miyay inoo soo bantahay kitaabkeeni quraanka inuu sida u go'o oo sida loo gubo oo qashinka uu ku dhago oo dariiqa lagu tuuro miyay inoo soo bantahay war walaalaheena is agtaagno wixii aan ku kaalmeyn karno aan ku kaalmeyno masaaxifta guryaha ku daashay ee ku gabowday aan ka soo saarno masaaxif jadiid ah aan ibsano ciyaalkeena aan xafidsiino wax alla wixii jamciyadaasi ay u baahan tahay waa in is agtaagno waa in khayrka ugu kaalmeyno waxay leedahay war walaaga iyo khayrka garabka is qabsanno qacmaha is qabsanno isku soo dhawaano waxaan wala qabsanno khidmada kitaabka quraanka aan inaku ilawnay aan dayacnay aan ka tagnay ayay iyagu xasuusteen sida awgeed waxa loo baahan yahay inaan dib ugu noqono ayaa loo baahan yahay وعبد السلام ساحة ورباهين تقرأ كشمولية الصوماليلان مقالة بورما